haatana daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha waxay noo hayaa wariyahayaga maxamuud mascade wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo xubinteena ciyaaraha ee barnaamijka qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo Ronaldo dabadii badisay iyo waliba Djokovic oo markii ugu horeeyay ka guuleystay Federer koobka loo yaqaano Cincinnati Masters hase ahaatee aan ku hormaro ceebtii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankii koowaad ee horyaalka dalka Ingiriiska xil ciyaareedkan oo toddobaadkii hore furmay badisay ayaa habeenkii xalay ahaa waxay foodays dareen kooxda Brighton Hove Albion iyadoo markaa lagu ciyaarayay guriga kooxda Brighton. Manchester United ayaa lagala hormaray gool oo loogu celiyay mid kale haddana hase ahaatee gool kale ayay keensatay waa loo saddexeeyay Manchester United oo ciyaaryahan Gross ayaa rigooro loo dhigay ku qabtay kooxdu wax guul ma aanay helin inkastoo Pogba uu gool rigooraha u dhaliyay 90 daqiiqo 3 dhibcood ayaa jeebka lagaga shubtay ciyaarta kadib ciyaaryahan Pogba oo isagu labadii kulan ee la soo dhaafay kooxda Manchester oo ahaa kabtan isla markaasina doonaya in uu ciyaarta iyo sida wax u dhaceen qaboojiyo ayaa eedda dusha ka saaray gabi ahaanba kooxda uu isagu ugu horeeyo waxa uu sheegay in aan isagay saaxiibadii diyaar u ahayn siday u soo diyaar garoobeen kooxda Brighton Hove Albion inkastoo noqotaba guul daradan soo gaartay Manchester United ayaa dadka qaar waxay saadaalinayaan inay horudhac u tahay maalmihii madooba ee tababaraha kooxdaasi Manchester United ee Mourinho. dhinaca iyo wadanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ciyaartay kulankeedii ugu horeeyay horyaalka wadanka Spain oo maalintii Jimcaha furmay. kooxdan Real Madrid ayaa waxay ciyaaraysaa iyadoo ka maqan yahay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo xil ciyaareedkii markii uu dhamaaday laga iibiyay kooxda kubadda cagta Juventus oo isagu kulankiisii koowaad toddobaadkan saftay. asaatee kooxda Real Madrid oo dad badan ay lahaayeen guuldarooyin miya u bilaaban doona Ronaldo dabadii maxay sameyn doontaa kooxdu masiideedii bay noqon doontaa su'aalaha iyo kuwa kaleba ciyaaryahan Gareth Bale ayaa ka jawaabay oo kooxda Real Madrid waxay ku badisay 2 gool iyo waxba gool qurux badan ciyaaryahan Gareth Bale ayaa ku soo qatimay ugu dambeyntiina hadii aan soo qaato ciyaarta loo yaqaano tenniska dheer koobka la yiraahdo Cincinnati Masters oo lagu ciyaaro gobolka Ohio magaaladiisa Cincinnati ayaa kulankii afaraad ay foodays ku dareen ciyaaryahanada Djokovic iyo Federer. ciyaaryahan Federer ayaa saddexdii kulan oo hore ciyaaryahankan Djokovic ka badiyay hase ahaatee ciyaaryahan Djokovic ayaa isagu habeenkii xalay ka guul helay ciyaaryahan Federer oo 4-6-4 ayuu kaga badiyay ciyaarta dabadeedna waxa uu sheegay ciyaartan uu badiyay ee koobkan uu ku guuleystay inuu kaga dhigan yahay mid gooni ah oo si aad ugu faraxsan yahay sababtuna waxa uu ku macneeyay inay tahay markii ugu horeysay uu koobkan ka faramaroojiyo ciyaaryahan Federer. waa tahay daawadayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan kulan dambe waa mascadooda la sida iyo nabadgelyo.